Hi saaxiibayaal, maanta waxaa idin fasiraya filim Chinese comedy oo la yiraahdo Tua Tia Tian. Marka iska taxadara like-gana saara. Hadda wiilkan waxaa la yiraahdaa Jackie Chan UC, waa 20 jir, sidoo kale wuxuu dhigtaa jaamacad ku taala Taipei. Haddaba awowgiis wuxuu u soo guuray Taiwan 1990kii. Hadda wiilkan la yiraahdo Jack 5 sano markuu jiray, hooyadiis way dhimatay, waa ka xunaay, waxayna u dhimatay xanuun la yiraahdo chronic depression. sidoo kale hooyo la'aan, aabihiisna mar walba busy oo shaqada ku ahaa, marka wuxuu is yiri noloshaada xagee u dambeynaysaa. Marka waxaa jiro macallin history oo la yiraahdo Professor P, laakiin carruurta inta badan waxay ugu wacaan Professor Big. marka inta badan cashiro dheeraad una siiyaa, historiga aad u noo bara. marka maalimaha kamida aniga waxaan ka dhaxelay kaamira qolkiisa macalinka, kadib sawir meesha ka qaada waay. aniga isla markii waxaan soo xasuustay war hoo kaamiradaada, macalinka kaamirada yaa u dhiibay, dhammaanteena waa soo ordna, war intee u ordaysiin. isla markaas macalinkii wuxuu fiiriyay saacadii way istaagtay, macnaha way shaqayn weyda. marka wuxuu yiri ma asaga ka dambeeya waxa masixroolaa talow. ilaa ninkan la yiraahdo Jack wuxuu u soo ordayay saaxiibtiis dhalashadiisii ahayd happy birthday, war socawri amandhaco xunka uma baahni jacayl waxaase fiyorahaadana qaado, jacaylka dhabta xataa ma aqaani. wuxuu bombale weyn u keenay oo u soo tuurtay. maalintii xigtay Jack wuxuu soo aaday Tua Tia Tian, bis macalinkii Professor Pia la socday ardayda kale. meeshan haddaba waa meel xasuus ah oo Japaaniiska ama Chinese-ka leeyihiin 1920kii ana la aasaasay. markii dambe ninkan la yiraahdo Jack wuxuu imaaday meel xasuus ah oo Dr. Chiang uu habeeyay. sidoo kale derbiga waxaa lagu xardhay uu taabtay. markii dambena asxaabtiisa dhammaan waxaa la siiyay shilin oo Dr. Chiang uu sameeyay. kadib shilinkan waa shilin xasuusa. aniga sawirada meesha lagu xardhan iska dadaabanay, sawirkaana indhahayga soo jeetay. markii dambe waxaan arkay Professor B oo carruurta u sharaxayo waxaan waxiin war kaamiradan qabo ka qaad meeshan sawir dhaqso. aniga sawirkii saan marka uga qaadabo, sawirkii wuu dhaqaaqay, dad soconayaaba arko cartoon ah. isla markiina meeshiyaan dhaxgalay. markii dambena waxaa la dhex keenay Taiwan, waxayna ahayd 1922. kadib saaxiibkii Black Cat aan arkay iyo walaalkii way aqoonsan waayeen. war soo bax waryaa hidii dhaqanaa leenahay, waa inaa soo dheesha baalkaani madax ay geliyeen waa la harantiyay. ninka marka Mr. Lian al dhahaa waa nin ganacsado weyn ah. haddaba gabadhan waxaa la yiraahdaa Jinja, waxay u egtahay Jack hooyadiis. sidoo kale waxay tiri sharciyadan uma baahnin, fahmaysta Mr. Leo. haddaba inta badan aniga waan ka fikiraa qoftan hooyadii camal u maleeyaa. haddaba maalimaha kamida anigoo xafladda joogaan suuxay, kadib waxaan soo naaxay anigoo Mrs. Jinja xaafadeeda joogo. Mr. Blaji asxaabteydana way sii ordaayeen. ilaa amarkiis magaalada waxaan kula kulmay ganacsado kale oo la yiraahdo Wen Show. wuxuu igu yiri xafladeena ka soo qayb gal. kadib suuqa la keenay nin la yiraahdo Mr. Big arkay, kanayuu noo ahaa. waraacdi waa ku aqaana Mr. Big Somatid, war Mr. Big la yiraahdo ani maalinta. kadib colonial police-ka oo Japan soo galay. meesha maxaa lagu hayaa? ilaa ninkan la yiraahdo Mr. Big wuxuu ahaa Professor Big, carruurta wax bari jiray, anoo iska qarnayay. sidoo kale director waay, wax kaliya ma baro. waraaxdi oo fiirnaysa gabadhan oo arkay Jack Rosa la yiraahdaa wuu jeclaaday. gabar kale la socotay oo geesha la yiraahdo. marka meesha xafladii ku lahaayeen, gabdhahana meesha inta badan way ka ciyaaraan. ninkan la yiraahdo Jack wuxuu soo qaatay geed weyn, madaxu soo gashtay, xafladii ana meesha ka bilaabatay. haddaba maalimaha kamida ninkan la yiraahdo Jack wuu soo orday, derbigu damcay inuu ka dhex baxo, laakiin madaxu isku dhuftay. Professor B wuxuu ku yiri war sawirka diyaar ma aha maalinta qofyo. haddaba ninkan la yiraahdo Professor B maalimaha kamida Tua Tia Tian uu imaaday, sawir uu ka qaaday. meeshii soo galay Taiwan suu taajir u noqdo. gabadhan Mrs. Jinja ayuu jeclaaday. wiilkan la yiraahdo Jack heesuu u qaadayay saaxiibtiis Rose, naf jecelahay ma hargasho, warnaa cod macaan leedahay caadi matiida, fiyorina waday. kadib banaanka khudbadda waxaa ka waday Chen Weishui nin la yiraahdo. ninkaana wuxuu dhahayaa la iska taxadiro waxyaalo badan. waryaada khudbadda way dhamaatay, kala xarooda dhaqsada.
kuwaana way diideen ma baxeenay dhaheen. Askartana waxay bilaabeen ummadda inay yaaciyaan. ninkii la yiraahdo George saaxiibkiis Black waxay soo galeen maqaayadda Mr. Lee. Mr. Lee-na wuxuu yiri waryaa ani 100 mar ku dhaay khudbadda magaciisa dhageysan Choi Soon-shi maalinta waraadi inay qasaarisid ma rabtaa ninkaas inuu waalan waa ogtahay. hal habeen Rose iyo Jack ay isla socdeen kadib Jack wuxuu yiri aniga waxaan rabaa fanaanka ugu qatarsan inaan noqdo. saaxiib riyadaada way ku rumaysay niyada qeyr u sheeg. haddaba xafladda meesha ka jirtay kadib Mr. Lee iyo kuwa kala imaaday meesha aad cabar lagu sheekeysanay gabadhii Rose ahayd meesha ciyaar ku waday gabadhan caadi ma aha. markii dambe Jack wuxuu soo watay gabadhii Rose ahayd kadib kuwa askarta meesha marmarayay sanduuqa yarina isku qariyay. hal maalin aad baa u xanuunsanaa Professor B ay daaweynay kadib waxaan ku yiri war maxay igula soo ordaa guriga Mrs. Ginger Moalataniyo. haddaba Mrs. Ginger waxay soo xasuusatay 10 sano ka hor cunugeeda inuu ka lumay meel la yiraahdo Colorado. haddaba Mrs. Ginger waxay ka bixi weyday xasuus. sidoo kale Jack wuxuu isiri Professor B lacag u baahan yahay. Mrs. Ginger waxay tiri aniga Professor B waan jecla waana ka helay laakiin asaga mar walba lama helayo inuu dunidan ku nooleen oo kale mar walba meel u aadaya macnaha sawirku ka dhaxbaxa mar walba. maalin maalimaha kamid ah waxaa imaadan in la yiraahdo Princess Rito kadib Professor B daaqadii u furay dad badan meesha isugu yimid isla markaas Jack wuxuu arkay niman xabado wato kadib Professor B uu soo booday wuxuu yiri istaaga meeshan wuxuu ku watay wax kale kuwaana way soo boodeen isla markaas sawirkii uu ka qaaday. sawirkana istaajo intuu noqday dhaxgaleen dhamaantood waxaan waa sixir caadi ah. haddaba Jack saaxiibtiis Rose wuxuu ku yiri saaxiibay hadda bixiysid anagoon ku raaca ama inta wada joogeena ugu xagga hadda aadno 1920 waaye internet male waxa malahan la soco. haddaba nasiib xumo gabadhii Rose ahayd saaxiibkeed intii kala tuurtay sawirkii dhaxgashay. Jackna aad u ooyay way saaxiibtiis aad u jeclaa. asxaabta saytiin ma fiicantiin warniyo nolosheena horaan ku soo laabanayna qoftan jeclaa way iga dheeraatay. aniga marka dhulka iska fiirnaa maalin indheyga waxay qabteen gabadhii Rose gabar u eeg gabadhana waa yara jeclaaday. asxaabi la gasaara muuqaalo badan aan soo wadaa mahadsanid.